islaanta ku jirta accountable weeye hooyada gabadha dhashay ka mid weeyaan dadka dilay dilkeedana way og tahay arrinkaasi waa xaqiiq weeye mar alla marka la soo hadal qaado gabadhii arrinkeedii way soo boodaay shir jaraa'id qabaa la yidhaahdaa iyadaa ka mid ah qaybta ugu weyn bay qaada waa in islaanta habartaa waa in maxkamadda soo taaga 100% intelligence-kayga meel kaga dhici mayso oo been noo sheegi mayso mar alla marka la hadal qaado ee la yidhaa gabadhii arrinkeedii baa la galayaa bay idaacadaha soo fadhiisataa waa ka mid accountable weeye islaantaas dilkii gabadheeda iyada wey hooyo kuma tilmaami karayno hooyo ilmaheeda meeshii lagu sheego ayay sanka la raacdaa oo laabta la raacdaa oo qalbiga la raacdaa laakiin iyadu way soo taagan tahay meel baa loo diray. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. kulanti wacan oo wanaagsan maalin wanaagsan habeen wanaagsan meel kasta adduunka ka joogtaan waa ina salaamay kusoo dhawaada maanta iyo wararka aynihiina. nin sarkaal oo ka tirsan dowladda Soomaaliya xagna u xiga qoyska ay ka dhalatay Ikraan Tahliil oo hadda meel lagu sheegi karo aysan jirin marba arrin hor la sheego mar al-shabaab haysataa la dhaho mar way dhimata la dhaho mar al-shabaab dishay mar dad siyaasi ba dileen la isku haysto ayaa maaragtay soo kashifay masana soo arrinta sida u soo dhageysteen soo kashifay arrintii wuxuuna sheegay in maaragtay arrimihii lagu tuhmaayay masana ay laga sheegay in ay dhab yahay in maaragtay niman siyaasi maaragtay ugu dambeeyeen eena adeegsatay wadamo aan ognahay inay ka soo horjoodaan dowladda Soomaaliya iyo jirkeeda iyo maaragtay intelligence-keeda socodka maaragtay ay wadeen misan wanaagga ay ku dhaqanayaan sida ay wadankeeda u kala wadeen 5 sano ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo hadda xilka ka wareegay sidii maaragtay oo dhaqanayeen si loo burburiyo ayaa loo isticmaalay gabadhii ayada meesha ka shaqeynaysay oo in maaragtay ayada marka ayada la dilay waxa kale oo uu sheegay in Kenya ay ka dambeysay qaas ahaan markii uu maaragtay ra'iisul wasaaraha hadda xilka ka wareegay Roble oo marka ayada Kenya imaaday meesha Mombasa kula kulmay madaxweynihii Kenya Uhuru Kenyatta oo meel uu marawala wadanka Soomaaliya oo in badan bay isku soo horjoodeen waxyaalo badan oo qabateen uu kaga qabtay madaxweynihii marka ayada jiray Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo aad dagaal badan dhaxdooda uga dhaxeeyay markii uu imaaday Roble oo waliba marka ayada xilka marka ayada loo dhiibay ayaa markuu intii imaaday Uhuru la kulmay oo waliba sidii rashin marka ayada noo muuqatay macawis oo ugu xiray Mombasa oo marka ayada ku kulmeen asagoo marti haddana inuu macawis u xiro madaxweynihii u soo martiyay kisto waa iska waji falxun waayo saan ognahay ninkii marka ayada martida ayaa inta badan hadda haduu ka tagay madaxweynaha Kenya oo Soomaaliya tagi lahaa oo ra'iisul wasaaraha uu la kulmi lahaa oo meesha macawis loogu xiri lahaa at least waxay ahaan lahayd maartay wanaag waayo nin marti ku waaye laakiin nin adiga u soo martiso wadankiisa aad joogto adiga marti u tahay inaad macawis u xirto kisto falxumo waaye oo sharaf dhacana xagaanada maartay kisto wadanka nooga imaatay masane lagu dhuftay ahayd ka dambe markuu laabtay Roble Bahane mise u dhaxaan masana ra'iisul wasaaraha Roble ayaa meesha ku laabtay markii uu laabtana wuxuu meesha ku bilaabay waxay ahayd dagaal iyo maartay burburis sidii kolay meesha ka muuqatana in heshiis meesha wadanka laga heshiiyay ahayd taada kale waxa la sheegay in maartay lacag badan loo siiyay oo si uu wadanka ayada marka ayada ahayd meel taxun taagan oo doorasho ku jiray in maartay wadanka uu maartay uu khalalaasa geliyo asagoo isticmaalayo meeshii ayada uu haystay mise jagada ayada uu haystay maadaama nin maartay meel powerful uu haystay ahayd taada kale meesha ayada ahayd oo lacag uu ku qaatay tirada badaneed ayaa meesha uu ku tilaabo qaaday ee ahayd markuu laabtana gabadhii inuu maartay meeshii uu siyaasadii u dhex geliyay meesha ayada ahayd oo waliba laga maamulayo oo intelligence-ka wadankii marka ayada ay kala dagaalayeen maasuqintii iyo maartay wadankii wixii uu imaanayay masana kor uga imaanayay dagaal lagu hayo wadamaha shisheeye ay ku hayeen oo danaystayaasha ahaa ayaa loo isticmaalay in maartay lagu la dagaalamo taa ayada ahaydna waxay kaliftay in gabadhii ayada ahayd meesha ay ku gagasho maadaama ay ka tirsaneed dadkii meesha ayada lagu laayay hadii wixii la sheegay amsan lagu maartay inta badan lagu dadkii lagu dhaxayo waxa waaye in maartay al-shabaabta Soomaaliya ku nool ay qayb ka tahay hata dawladda marka ayada dhisan oo hadda waliba dadka hadda dawladda xubnaha muhiimka ka haystaan lagu eedeynaa ilaa waqtigan waxa marka ayada investigation misan hoos u noqdo dadkii lagu noqonayna ma jiro ku kasto waa la soo eedeeyaa al-shabaab uu ka tirsan yahay la dhahaa wax u tilaabo oo laga qaadayna ma jirto waana laga aamusaa hadii wadankii in maartay al-shabaab baa la dagaalay la dhaho haddana al-shabaabtii la dagaalay haddana in ayada haddana lagu soo dhax noqdo oo maartay ayikii dadkii dawladda meesha xubinta muhiimka
haddii meesha xubinta muhiimka ka haysatay ay noqoto haddana haddii waxay noqonay inay ma aragtay wixii lala dagaalayo uu malayac yahay waayo nin aan la dagaalayso haddana adigna gurigaada dhex fadhiyo cidaada meeshii aad joogto iyo wixii aad qabanayso xaaladaada oo dhan la socdo waxay noqonay ma aragtay waxba aanay meesha lala dagaalaynin oo wixii lagu taageerayo ay tahay sidaan ognahay al-shabaab inta badan waa lagu eedeeyaa wadamo shisheeye inay taageero ka helaan oo lacag iyo hanti fara badan inay Soomaaliya dagaalka ay ku hayaan waa sababta ay tahay waxaa waxa maanta al-shabaab hadda meesha ka baxdo oo dagaalka meesha ay ka baxdo inay ma aragtay waxaan ognahay dawladii ay wax kale oo marka ayada la dagaalayso musuqmaasuq kale inay gudaheeda ma ogi wax kale oo marka ayada haysto u jirin oo Soomaaliyana ay israacayso balse al-shabaabti baa lagu dhaxayaa oo dagaalku maalin kasta oo meesha ay magaalada ka dhaqdhaqaaqayso musuqmaasuq ka dhaqdhaqaaqay waaga bare oo qarax lagu dhaxayaa ummadina lagu lahayaa oo meeshii ma aragtay lagu nag lagaga dhigay taas oo keenaysa walwal fara badan oo wadankii dhaxdiisa ka jiro oo ma aragtay wadan musuqmaasuq iyo ma aragtay al-shabaab ay ku dhaxaysto meeshii waxay noqonay inay dadku uga kala cararayaan masana meel xorriyad masana wadan fiican oo sideedaba ma aragtay wadan madax banaan uu noqon karin maadaama ay ma aragtay dawladda ayada lafteeda ay ka madax tahay masana ay ka mid tahay wixii marka ayada al-shabaabti iyo ku dhex jirkeedii iyo la shaqaynteedii iyo horumarkeedii iyo ayakaba ay ka mid yihiin teeda kale Uhuru Kenyatta oo madaxweynihiisa Kenya ahaa oo inta badan hadii waan ognahay Kenya horumarkeedii waa iska rabnaa baa la leeyahay balse sida dhabta ee masana sida xogta meeshii ka jirto waxa waaye inuu ka soo horjoodo masana dawladda aadma dariska ee hadda inta badan kula dhex jirto masana ay ka qayb tahay waxa waaye Kenyana waan ognahay inay ma aragtay ay ka soo horjoodo masana ay ka soo horjooday waqtigii farmaajo maadaama ay waxyaalihii ay u baahnayeen mas waxyaalihii ay rabeen uu ka hor istaagay uu dhahay Soomaaliya waa dawlad madax banaan haddii aad caawinayso caawi haddii aad caawinaynin ma aragtay ka bax dirishadaas oo ma aragtay yaana kugu arkin wadankan masana meel ka dhow tii oo kaliftay in Maxamed Cabdullaahi Farmaajo dagaal badan lagu qabtay oo in badan ma aragtay dagaal lagu hayay oo in badan laga soo horjooday oo in badan ma aragtay siyaasad iyo si kalaba lagu la dagaalayay oo la lahaa ma aragtay in la muquuriyo oo la hoos loo riixo oo la damcay inkastoo nin adag oo ma aragtay dawladii iyo ma aragtay nin ma aragtay adag asaga laftiisa uu ahaa oo wixii marka ayada caqabad mise wax kasta oo ka hor imaanay ma aragtay ka soo horjooday mise uu kala dagaalamay nimanadiisa iyo dawladiisa soo isticmaalayo inta badan xubnihii ma aragtay la jireen mise la shaqeynayeen asaga ay taageero badan uu ka haystay oo ayna ma aragtay ku caawinayeen intelligence-ka kamid ahaadaan oo ma aragtay NISA qaas ahaan ha ahaato oo la dagaalaysay garab taagneed madaxweynaheeda oo wixii tilaabo kasta oo la qaadayeen uu ma aragtay garab u ahaayeen oo la istaagnaayeen oo la shaqeynayeen marka ayada meeshii marka ayada laga burburin karay waxay ahayd hadee nin Maxamed Cabdullaahi Farmaajo nin siyaasi buu ahaa oo siyaasad ku soo galay kadibna hadii waqtigiisana uu dhamaaday marka ayada doorasho baa jirtay inay ma aragtay xilkaas sidii loogu wareejin lahaa bay marka ahayd markay laba xaalad meesha ay marayso Roble ayaa meesha soo galay oo lacag iyo hanti badan hadii madax loo galiyay Kenya ay isticmaashay ayna damacday inay ku burburiso wadankii ayadoo ay ka bilaabayso hay'adda NISA taas oo gabadhii ka shaqeynaysa hay'adii lugta loo galay oo meesha ayada lagu qaarijiyay si wadankii ma aragtay qalalaas loo galiyo oo meeshii hay'adda NISA la ma aragtay qalalaas loo galiyo wayna ku guuleysteen sidaan aaminsanahay sidaan ognahayba way ku guuleysteen in gabadhii meesha ayada hadii lagu dilo laguna dhaafiyo xaaladii wadankii meesha ayada had Fahad Yaasiin oo isagana meeshii loo ogaa inuu ma aragtay gacanta midig Farmaajo uu ahaa ayaa haddana meesha laga bixiyay wixii cadeemihii markuu damco inuu keenane sidaan ognahayba uu sheegayay asagan uu cadeeyay in ma aragtay dagaal lagu qaaday oo meeshiiba hatta inuu Djibouti hatta lagu qabtay oo la damcay in asaga laftiisa la afduubo oo la qaarijiyo laakiin ay nasiib wanaag ay suurto gali waasay oo ma aragtay xaalado fara badan darteed loo ansixin waayay mise loo yeeli waa in la dilo kadib waxaa imaatay in ma aragtay wadankii ma aragtay shaqada laga tiro shaqada laga istaajiyo haddana meeshii dagaalka lagu qaaday inay haddana lagu guuleystay hadda sidaan ayna waxa waaye inay Kenya ma aragtay Soomaaliya laga maamulayo madaxweyne waan iska leenahay dawladdu waan haysanaa waan leenahay laakiin inay Soomaaliya laga maamulayo wadamo kale oo horumarkeeda aan rabin